Irdihii bannaanaa ma dad oday baa jira, ma ururkaa la ii dabay, ma af reer magaalo laygu aamusinbaa, maanigaa irdhoobo samir iga idlaado wax ka eegay meel kale ujeedadu maxay tahay? ayriidi banaana madadooday baa jira ma urkaa la ii dabay ma af reer magaalo laygu aamusinba ma urkaa la ii dabay ma af reer magaalo laygu aamusinba maaniga irdhoobo samriga ilaado wax ka eegay meel kale ujeedadu maxay tahay ujeedadu maxay tahay ujeedadu maxay tahay waxay ahayd qiso jacayl oo aad iyo aad u xanuun badan. qisadaasi jacayl waxa ay ka dhex dhacday laba fanaan ama laba hobol oo ka mid ahaa kooxihii Soomaaliya. waxa uu ahaa abwaakii weynaa, agaasimihii iyo weliba maareeyihii tiyaatarka iyo gudoomiyihii kooxda Waaberi. Maxamed Ciise Gane ayaa isagu jacayl lixaad leh oo ah mid qisooyinka buugaagta sida Qays iyo Leela iyo Cantar iyo Cabla lagu xardho. jacaylkaas ayaa caan ka ahaa geyiga Soomaaliyeed iyo weliba fanaaniinta Soomaaliyeed dhexdooda. Faynuus ayaa towgii koowaadba waxa ay si kal iyo laab furnaan ah ugu soo dhaweysay jacaylka oo uu qaaday abwaanka. Maxamed Ciise Gane wuxuu ahaa abwaanada Soomaaliyeed kuwa qisada jacayl ku cabira suugaan iyo weliba afmaalnimo. waxa uu ahaa gudoomiyihii kooxda Waaberi. Allah u naxariistay wuxuu ku dhintay wadanka Nigeria mar ay u tageen kooxdaasi show halkaasi lagu qabanayay. shil ka dhacay halkaasi ayuu ku dhintay abwaanka sida kalena waa ninka heesta beledweyn ee Hadraawi uu sameeyay lagu magacaabay Sawtaliya Baaso Ba'anoo Warmoogi taydii ma beeneen. waa ninkii agaasimaha kooxda ka ahaa ee diiday inay kooxda sii joogto beledweyn, halkaasoo Hadraawi uu doonaya habeenka xiga inuu gabadha kula kulmo. taa uu abwaanka ka diiday ayuu heesta ku cabiray isagoo leh Sawtaliya Baaso Ba'ana Warmoogi taydii ma beeneen. haddaba abwaankaasi weyn ee Maxamed Ciise Gane ayaa isagu waxa uu ula hadlay Faynuus Sheekh Daahir si macaan badan, iyadoo jacaylka soo dhaweysay welibana silka lab furnaan ah. 3 hees oo caan ka ah geyiga Soomaaliyeed ayay qisadaasi aad iyo aad u taabanaysaa. abwaanka ayaa isagu heesta koowaad ee aaminay xusuusnow inkastoo ayaamahan arrintaadu adag tahay, aadamigu siduu qabo amay aniga ila tahay, adna aad ogsoon tahay ifka intaan ku noolahay kaa ooli maaye. inkastoo ayaaman rabitaadu adag tahay admigu siduu qabo amay aniga ila tahay adna aad ogsoon tahay ifka intaan ku noolay kaa ooli maayo. heestaasi aamina abwaanka wuxuu kula hadlayaa inuu si dhab ah u jecel yahay, inuusan doonaynin inuu lumiyo iyo weliba inuu ifka intuu ku nool yahay iyada qof aanan ahayn uu jacayl iyo nolol toona la wadaageenin. abwaanka ayaa waxyaabaha uu heesta ku soo qaaday waxaa ka mid oo cajiibka ah ma ballan ay lahaayeen habeen inuu weliba heestii ku soo qaado isagoo leh arrin waxaan ku goynaba sawri talado isu imaashadayni arbacada habeenkii 4 saac markay tahay ayuu ahaatee aniga xusuusno. sida ay sheegayaan dadka suugaanta Soomaaliyeed ka agdhow ama qisadaasi jacayl la socday waxa ay leeyihiin waxa ay ballan ku lahaayeen isu imaansho bar Extra loo yaqaanay ee ku yaala kasoo horjeedka Shaneemo Xamar. haddaba sidaas ay tahay fanaanada abwaanka ayaa ka shakisnaa in ay jacaylka ka cagajiideyso. waxa uu sheegay inay aad iyo aad ugu jecel yahay. Faynuus ayaa iyadu si dhab ah ugaga cagajiideysay la socodka ama inay jacaylka la wado abwaanka. habeenkaasi ballanta jacaylka abwaanka iyagoo ballansan 4 saac habeenimo ayuu 1 saac habeenimo sii tagay baarkii ay ku ballansanaayeen.
weliba halkaasi sii fadhiistay iyadoo ballanta ay ka dhiman tahay 3 saac oo kale. Haddaba sidii uu sugayay ayaa la gaadhay ballantii xilligii ballantii 4 saac habeenimo markay isku taagtay gorsheegtada ayuu abwaanka bilaabay inuu eego bal inay soo socoto. malaha oo maysan imaanin 30 daqiiqo kadib ma soo socoto, malaha way soo daahaysaa ayuu is yidhi bal sug 1 saac kadib maysan imaan. markay isku taagtay saacadii 12 habeenimo oo aysan soo istaagin ayaa shaki galay. banaanka ayuu soo istaagay sida dadka jaceylkaasi ka adhow ay sheegayaan. maysan imaanin 1 habeenimo ama 7 saac qofba siduu u yaqaano. haddaba sidaas ay tahay ayaa waagii 3 habeenimo ayuu meesha ka caga jiiday isagoo qalbi jab weliba ogaaday jaceylka uusan daacad ka ahaynin. abwaanka ayaa isaga huleelay isagoo weliba aad iyo aad u qoomameynaya jaceylka dhabta uu qabo iyo sida fudud ee fanaanada ay isaga ugu ciyaartay, xataa aysan u soo sheegin ballanta in ay ka baaqanayso ama aysan imaanaynin ama xataa aysan odhanin jaceyl kulama wadayo. isagoo aad iyo aad u xanuunsan xumad xina ay hayso ayuu abwaanka halkaasi isaga tegay. haddaba abwaanka ballantaasi ay kaga baxday Faynuus Sheekh Daahir weliba habeenkii dhanna uu sugayay ilaa 3 habeenimo ayaa wuxuu xaafadiisa yimid isagoo qalbi jabsan qoomamana ka qaaday ballantaasi cahdigaasi uu la galay inantaasi iyada jaceylkeeda dhalanteed ku yahay oo afka aan dhaafsiisnaynin. abwaanka ayaa subaxii waxa uu ergo iyo weliba dad la hadla Faynuus iyo waxa ay damacsan tahay soo weydiiya u diray Faynuus Sheekh Daahir. Faynuus wax jawaab ah oo ay ka soo bixisay malaha, isagoo weliba u qaatay in jaceylka ay sheegayso afka baarkiisa uusan dhaafsiisnaynin welibana ay ku dheeldheelayso. abwaanka ayaa isagoo jooga wuxuu sameeyay hees gardhigasho ah oo u gardhiganayo Faynuus isagoo ka hadlay ballantii uu la galay habeenkii Arbacada ahaa ee uu goysay. amarkan ku farayo axdigaynu dhigani Arbacada habeenkii 3 ilowde isniin miyaan ka dhiganaa. amarkan ku farayo axdigaynu dhigani Arbacada habeenkii 3 ilowde isniin miyaan ka dhiganaa. isagoo welibana caddeeyay in maalmaha Ilaahay isugu mid ay yihiin welibana uu doonayo inay maalinta iyada jeceshahay u timaado. Soomaalida iyo weliba culimo diinka Soomaaliyeed sida ay qabeen maalinta Axadda iyo maalinta Arbacada waxay u yaqaaneen maalmaha ballamada iyo in kitaabka la bilaabo ama wax kastoo la bilaabay labadaas maalin ay ku fiican yihiin. haddaba wuxuu leeyahay maalmaha Ilaahay waa isugu kaymid, inkastoo Axaddu la yiraahdo iyo Arbacadu waa maalmo aad iyo aad u wacan, haddana anigu maalmaha Ilaahay waa isugu kaymid. irdihii banaana ma dad oday baa jira, ma ururka la ii dabay, ma afreer magaalo leegu aamusinba, maaniga irdhoobo samir iga idlaado wax ka eegay meel kale. ujeedadu maxay tahay? ayriidi banaana madadooday baa jira, ma urka la ii dabay, ma afreer magaalo laygu aamusinba, maaniga irdhoobo samriga ilaado wax ka eegay meel kale. ujeedadu maxay tahay? ujeedadu maxay tahay? ujeedadu maxay tahay? haddaba ugu dambeyntii Maxamed Ciise Ganey waxa uu caddaatay in Faynuus Sheekh Daahir ay ku wada beenbeen iyo weliba jaceyl aan afka dhaafsiisnaynin, isagoo weliba noloshiisa ag dhigay jaceylka u qabo darteed. Faynuus ayaa iyadu waxba ka soo qaaday abwaanka iyo weliba agaasimaheeda intaba, taasoo ahayd wax lala tacajubo in qof sidaas ku jecel aad weliba ku dheedheeshid. abwaanka ayaa ugu dambeys yaqiinsaday in Faynuus waxeeda aysan afka dhaafsiisnaynin, wuxuuse go'aan ku gaadhay inuu ugu dambeystii inta la hadlo xaqiiqda u sheego, runtana taabsiiyo, kabacdina uu ka socdo jaceylka dhalanteedka ah ee ku maaweelinaysay. abwaanka ayaa isagoo si toos ah ula hadlaya Faynuus runtana u sheegaya waxa uu yiri. ma ogtahay
siraade Soomaaliyo idil uma sidatid quruxdee habla kulaasin ma jira ma ogtahay siraade Soomaaliyo idil uma sidatid quruxdee habla kulaasin ma jira onan saa u eegini waa su'aale kalida kaaga sahansaday onan saa u eegini waa su'aale kalida kaaga sahansaday سفر ملي جعيلكي وسداي إلى قبو إلى قبو هاي وسيدين haddaba ugu dambeystii Faynuus heestani markii uu si dhaba kaga hadlay ogaatana inuu abwaanka go'aan gaadhay ayay u soo dabacday iyadoo ugu dambeystii go'aan ku gaartay inay jaceylka la wadaagto lana wado qofkan sida dhabta u jecel oo wax walba ay daacad ka yihiin Faynuus ayaa ugu dambeyntii abwaanka hawsha la qabatay walibana guursatay ayaa wuxuu noqday seegeedii laakiin nasiib xumo Nigeria ayuu ku dhintay shil ka dhacay halkaas Nigeria ayuu ku dhintay shil halkaasi ka dhacay Soomaaliya markii ay ka qayb galeysay showgii lagu qabtay wadankaasi oo ay casuumaad ka heshay Allahu naxariistay Maxamed Ciise Geene iyo Abgaal Saciid ayaa ku dhintay halkaasi oo ahaa madaxdii hogaaminaysay kooxdaasi fanka Soomaaliyeed ee ka qayb galeysay showgii iyo martiqaadkii Nigeria intaas aynu kusoo gabagabeynayna qisadaas xanuunka badan ee heesaha saddexda laga sameeyay ee uu sameeyay abwaanka weyn ee Maxamed Ciise Geene dib dambe intaynu ugu kulmi doono barnaamij noocan oo kala ee qisa sidan oo kala ama ka xiiso badan channelka like iyo subscribe toona ha ka iloobin nabadiino nooli kulante iyo amaana Allah